baby وحلو بلعيقة وديان أفكدية بالبلانكة يبكدي الروح وحكو صار والله يابد waxa ilaahay isiyay 4 caruur ah waxaan u kala dhalay wiil iyo aabihiis anigana maana ogeen ma guursan lahayd xaas uu hore u guursaday aabaha waa su'aal runtii da'weyn waa su'aal in badan ay la murugaysan yihiin waxay soo gaaray fariin uu ii soo diray walaal Soomaaliyeed oo muslim ah bismillaah السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفتا قيمة بدن قايها بدن ومركلي موقع عصب برتنا دقل إيغانيسان وبرتيني وبرتن كون جرني والله كامل يبرو آدي أدبو مهسنتين كسو هذا من اللي دنكيش عليهاي ولا لها قلبك سي شير قريب برنامج أصحابتا لو ذاك الشانلكا سبسكرايب نوصار سليق النبي عليه الصلاة والسلام هلما مننا وقت صلاة هذا يتهزوت كذا معقول ما إنان كتبوا واحد ما بق بق إلى وداوين واحد إلى وداوين واحد Soomaalida warbadnidii ajnabiga qortay inoo gelisay waxay aad baan u qoslayaa waxaan ku qoslayaa waxaan soo wadan ku qoslayaa la yaab waxa ah Sheikh Kinyawi qorta waxa loo geliyay waxyaabaha social media ka socda oo gabadhan hadalka ay leedahay iyo sheekh hadalka uu leeyahay marka isu fiirisid barnaamijkiiba bartanka sheekha laga geliyay waxa weeye King CK oo dib u soo laabtay mar kale oo social media dib ugu soo laabtay xarigiisii iyo arrimihiisii ayaa aad la isu dhexwaday ninkan gabdhaha arooska ilka ula boodaya tolow walaashiisa waxa qaaday gabar kale oo Soomaaliyeed u malayn mayo ninka inay hawada saa ugu baxayso oo la boodayso u malayn mayo anigu gabar saa u qaadanaysa inay jirto ismilihi waa jirtaa haddaysan walaashi ahayn oray waxa xaqiiqi waa bahalkan gadaashayda way yaan hadhow leeydin halka markay maraysay sheekadu aad baan u nabcay waxyaabahaas daqiiqada ay ku soo qoraan Soomaalidu waa dad aad u dhib badan waa yahay marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa inkaan dhalinyarada aroos heesta laba gabdhood baa la booday ninkan laba gabdhood baa la booday irkay u qaateen uu heesayaa وكا ميكروفون كيف أفكو هيسا فورتين ببحبو ديديا أول بهيسا سفي عن حريف كان ومحفد السنين وقالنا يسا وربال ليغا وريا إلهي يقان ورنيهم ورمولا ليسا قرن واي حفلت بكل بكا قاضي وعروس قبل لاسان دريمي يا ساو اللي بسنة قبل لا عروس كأبو حفلت دي ذاك قاضي وضيق وكا جوابه حينو قد قينا نين كان واحد يمني قالي ومدينا معها وضيقي توحو وسوق بصري بقول دقيقة بس قدم دراي ودلدلي iyo wax ayna fahmayn oo aan la yaabnay Sheikh Kinyawi hadalkiisa waa idin soo deyn doonaa laakiin gabadhan horta marka hore aynu gabadha eegno waxaan kamid ahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ilaahay isiyay 4 caruur ah waxaan u kala dhalay wiil iyo aabihiis anigana maana ogeen waxaan rabaa fariinteeda inaad iga gaarsiisin culimada Soomaaliyeed waxaan iskaga noolaa wadankaas iyo Itoobiya gabadh yar oo iskaga noolaha muddo fara badan ayaa wadankaas Itoobiya iskaga noolaa family-gayga meesha sartaleyn ku sugayay muddo badan leen isku sugayay ambaar ku soo barbaaray iiraanteedii waqti ku soo qaatay family-gayga waxay u keeneen nin aad iga daaweyn adig dhowr sano iga daaweyn ay ii keeneen oo qurbahaas ka imaaday waxay dhaheen ninkaas ka guurso anigoo markaas oo iska diidiidayo oo gabar yar iska hadana niyad waxa ay gashay maadaama aan laynku ka soo daahay iska guurso sidii ba aan ninkii Ilaahay family-gayga ugu dareen isku guursanay sidii aan isku guursanay oo family-gayga igu dareen
muddo ayaa isqabnay muddo sidaas ku qabnay meeshii Etoobiyadii iska deganeen iska dhaqmaynay ilaahay wuxuuna kala siiyay hal wiilkii maruu noo weynaaday oo dhowr sano xoogaa adiga isqabnay asas qadneen oo cunuga xoogaa ayuu iga geeriyooday kadibate hadduu iga geeriyooday wadankayga iska sii joogay meel kale maan aadin cunugayga iska korsaday muddan Etoobiyayga iska fahmay iskaga noolaa aaladaha Facebook mid kamid ah maalmaha kamid ah waxaa iska baranay wiil Soomaaliyeed wiilkii aan muddo wada sheekaysanay xiriir dheeraan dhexmaray heer waxa gaarnay wiilkii inuu ii imaado wadankii aniga ku noolaa igu imaado kadib meesha isku aragno sheekaysano kadib wuxuu dhahay cidda ayaan ka doonanayaa anigana aqbaqtada dhahay maadaama aan wax badan la sheekaysanayay maba maaragtay wax saas dhib ma arkin ciideedana waxay jirtay wadankaas iyo Soomaaliya telefoon ma loo soo diray sidii baa wiilka ciidii family-gii aan u baray kadib ciidii lacagahoodii wuxuu Sooriyada loo diray aniga wiilkii meeshii baa isku guursanay maxay heetay aan ku aqalgalnay meeshaas iska degnay muddo ku nooleen muddo waxa isqabnay 5 sano markaas ilaahay wuxuuna kala siiyay 3 cunug ileen iyo kalkii hore 5 cunug baa marka sidaas ku heysana anakoo barwaaqaysan oo waxa way reerkeena ma sha Allah noo yahay oo isku faraxsanahay laba qof oo isku faraxsan aan hanayo maaragtay ma sha Allah isfahanay wiilkiina marna wadankiisa u imaanay haddana ayaan kadib iimaanay anigana meeshaas ilmihi ku korinayay oo alxamdulillah kaaliska arag ayaa maalmaha kamid ah aniga asigii oo isla joogno ayaa waxa noo imaaday adeerkiis ayaa maalmo imaaday wuxuu igu dhahay adeerkay ayaa imaanay waxaan rabaa inaad casuumad u sameysid martiqaadid inuu waxa dhacday inaan martiqaadno aniga xaajigiiba aan u diyaarino kadib adeerkii baan noo imaaday haddii adeerkii noo imaadaba istaagu ka dhacay farkuu noo wada arkay waan yaabnay wax qaldana isweydiinay sidii uu kooma ku galnay waa lalo orday isbitaal baa la geeyay kadib kooma ku jiray koomadii kadib waxa dhacday in uu soo naaxo oo wiilkii uu canan ula soo tooso markuu koomada ka soo dhacay oo dhahay maxaa waay ceebtan ameenaha aad dhex taagan tahay anaka waa yaabnay waa fajacnay waa maxay ceebta bismillaah daawada waxa u dhintay daawada ma wax u dhintay israanay waxa dhacday inuu dhaho gabadha oo aabaha uu qabay guriga aabaha uu ka dhintay maxaa ku geeyay aniga asiga markaas waa yaabnay waa fajacnay anigana uu kali wuxuu dhahay maxaa kugu kalifay waa maxay dhibaatada kugu kaliftay wiilka oo eedada u taho wiilkaaga aniga asiga markaas shaqo ku baraarugnay wax ognahay waagi aan ugu bariyay naxdintii uu naxay wiilka horta wax jawaab kama soo bixin aniga abroona waxa dhacay maxaa dhacay wiilkii orodku oo adeerkii isbitaalka maalintii laga soo baxshay u dambeysay wadankiisa u laabtay anigana waxaan iska joogaa wadankayga ilmahayga iska haysta maadaama aan hooyo ahay aan ilmahayga ka tagi karin arintiina ay arin aad u xasaasiyo arinta aad u xun ay tahay waxaan rabaa culimada Soomaaliyeed in la weydiiyo haddana waxaan rabaa ilmaha aan iska dhalnay maadaama ay kama ku dhacday iyo dhaxgal badan oo aqoonsi dheer aan macnaha aan isku sii taxraacin ilmahaas maxay noqon karaan waxaan rabaa mideeda kale way gabadha halka markay marayso waxaynu uga noqonaynaa wax Sheekh Kinyaawiba oo ka jawaabaya arinta baan u imaanaynaa gabadhan waxay leedahay laba nin wiil iyo aabihiisan ubadu wada dhalay laakiin hadalkeeda waxa kamid ah xogaa qof kasta oo fiirstay bilowga waxay ku leedahay wiilkaygii yaraa aan macnaha wiilkii oo aan odaga u dhalay waa dhintay ma garanaysa saddex bay tiri baan kan dambe u dhalay kii dhintay bay ku soo dartay waa isku shan bay tiri wax kolba waxba qasan kolba halka idinka laftigiina waa feelin kartaan qas baa jira iyo lab waxba isku qasan Sheekh Kinyaawi waa kan oo arinta la weydiinayay ولا ويديي هيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي إيجا هو سؤاشان ويلكاغا إسو إيجايا ما قرسان لهايد حاس وهوري وقرسري آبها وسؤال رنتي دعوين وسؤال إن بدن أي لم يسيهين وحيسو قاري فرين وإيسو دري ولا الصوماليات أو مسلم أو قرسري
kana ilmo dhalay xaas uu hore aabihii u guursaday waa la yaab waa su-aal madaxa daalinaysa in badanna ay la yaaban yihiin laakiin wiilku wuxuu inoo sheegay in aanu ogeyn gabadhani in aabihii ay u dhaxday gabadhuna ma aanay ogeyn in wiilkan ay guursatay aabihii ay iyadana hore ugu dhaxday meesha ogaan la-aan ayaa ka dhacday laakiin da'dan yar dhallinyaradani way murugaysan yihiin waxay leeyihiin maxaanu samaynaa inta cilmigaygu yahay ayaan runtii la wadaagayaa walaalahan waxaad ogaataan Soomaaliya idaylkiin ilaahay wuxuu inaga xarimay xaasaskii ama haweenkii ay aabbayaalo hore u guursadeen ama ha furaan ama ha ka dhintaan ama ha qabaan الله ينضحي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هقرسننا هراء وحي آبيالكين أقرسدين إلا وحي أيضا أغين هراء دعي ماهنه محايا لي وازنو وعراء الله ووداءات إياد أحن واتكوها لك سميسان ولالك مرغيسان وحان ليهي حداد أغيد قبضاننا بحا قرسدي دنبي آد ياد أوين وحاد كون عدينا وازينو حدادا أغين إيادونا آني أغين ما أنت محانو سمينا خلط بانو قال لي حداد ليديهين حلكينو وإن آد كالا تكتان ومانا باهنا قوانو إن لفرو أذيقون هنا فرتيد وما باهنيت المها ميشا كدا شينا وحلال محايا لي شبها أي كدا شين إلهينا أطوبت كينا الله يدن بركيه شيخ كينياوي هذا كهر لا وحا أركي ني يوتيوبر برنامج كاسو قد بيه قصة دا سونا كشيكي وحوغا شيكي قصة عهان ninka dhalinyarada aba ila wadaagay buu yiri Sheikh Umal iyo Sheikh Kinyawi iyo baan weydiiyay marka dabcan qoraalkan hadda Sheikh Kinyawi jawaabtan uu wiilka siinayo oo aad wada arkaysaan oo sida waafiga oo sharafta leh uga jawaabay waa su'aasha wiilka gabadhan marka anigu saan isleeyahay sida aan aaminsanahay horta qof weyn been baad sheegaysaa af qabluus way af la oran kara ma laakiin markaan wax badan eegay gabadhii maaha saan u malaynayo hadday gabar kala tahay waa baab laakiin kolba gabadhii maaha gabadhaani been lawad way been bay sheegaysaa oo been bay social media la soo fariisatay anigu oran mayo sababtoo ah qof dhan oo miyir qaba oo caadi ah inta soo fariisto inuu iska afuufo wuxuu doono aad bay horta social media maanta waa la wada joogaa waana macquul laakiin kolba iska hor imaad ba hadalkeeda ku jira waxaan leeyahay kolba gabadhaas ninkaasi uu ka warramayo ma aha sababtoo ah taa qisadaas aad baan ula yaabay waa dhegaystay waxaan u malaynayay inuu yiri aabahay baa qabi jiray kadibna aabahay waa xanuunsaday wuuna dhintay qurbuhuna ka yimi qurbuhu isaga noqo qurbuhu ku dhintay inay saa ahayd baa u malaynayaa kadib baan anigu gabadha guursaday reerkeedana ka doontay mana ogeyn kadibna qisada inta dambe iyo adigu qaar meelo badan bay iska leedahay allahu aclam wixii ka jira laakiin caqliga saliimka ay wuxuu sheegayaa gabar Soomaaliyeed inta soo fariisato wiilkii baa isa soo qariyay oo su'aashaas culimada weydiin waayay bareer u weydiin waayay telefoon iyo message iyo wax ka soo weydiiyay ama cid u soo faray ma kula tahay gabar Soomaaliyeed oo hooyo ah oo ubad dhashay inta soo fariisato inay oran lahayd ubadkayga waxaan u kala dhalay sodogay iyo wiilkiisii baan u kala dhalay ma dhici kartaa inay tiraahdo jawaabta idinkaan idiin deynaya laakiin qof kasta oo caqli leh wuu og yahay inuu dhahayo subxaanallah wax dhici kara ma marka barnaamij soo batay baa jiro oo maanta social media aad ugu badan oo ah
attention raadin, attention in maaragtay dadku indhaha dadka inay soo jiitaan oo la alla qofkan muxuu sheegayaa oo la barto oo caan noqdo oo ama dhaqaale laga sameeyo oo meelo badan bay dhici kartaa. Marka ilama aha aniga caqli ahaan ilama aha, laakiin gabadha walaashaya beenley baa tahay, been baa sheegaysaa oran mayo. Oran mayo halkanna maaragtaa CK oo halkan waxaa lagu soo qoray qoraalkan waxaa lagu soo qoray Cumar Kirish ayaa ugu dambeyn caawa shaashadaha si toos oo uga soo muuqan doona. CK marka waxaa la yiri CK xabsi buu ku jiray. Dadka markay Maraykanka galaan dhowr qaybood buu xabsigu u qaybsan yahay. Dad waxaa jira markay galaan la qabto 2 maalmood albaabkaas idina derbi kama booday albaabkaas markay dadku galaan qaar baa jira 2 maalmood lagu hayo meesha. 2 maalmood oo meesha lagu hayo kadib ay dhacdo in la yiraahdo soco oo Maraykanka gal, halkaana uu interviewgiisi iyo wixiisi iyo sugo qaabkii kadibna loo soo dirsado interview loo soo diro uu tago oo markaa immigrationka inta tago la waraysto iyo sheeko noocaas. dadka qaarna dhab baa la siiya, xabsi baa la geliyaa. dad baa 6 bilood ku jira, dad baa 3 bilood ku jira, kuwa 2 bilood ku jira, kuwa bil ku jira, nasiibkood. marka inuu dadka ka mid ahaa shaki kama jiro, dadka inuu ka mid ahaa. dad badan oo caana aynu naqaanay baa waxay ku biireen kuwii 2 beri gudahood la sii daayay oo adreeska inta sheegteen horey laga sii daayay. marka qaarna iyagoo sheegtay xataa baa lagu adkeeyaa oo aan laga sii dayn. marka isagu wuxuu ku jiray qoladii dhab la yiri oo la geliyay kadibna kolba un ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo isniinta uu banaanka u soo bixi doonaa haddii ilaahay. kolba un soo dhawow baa la oranaya, soo dhawow bay ila tahay. Welcome America. social media maalmahan aad baa looga hadal hayay, waa xiran yahay, markii la soo daayay baa dib loo xiray. dad saali waa jiraan, laakiin sida saxda ah oo processka saxda ah oo jira wuxuu yahay in dadka qaar 2 bilood la xiro, qaar 3, qaar 6, qaarba qayb la xiro kadibna marka dambe la soo daayo. ma garanaysa ay ciqaab uga dhigaan wadanka sharci la'aan baa ku soo gashay ma garanaysa sheeko noocaas. laakiin qofka xataa haddii dad baa waxay lahayn waa la qabsaday oo qaabkaasaa lagu qabsaday. ninkii igu yaab badnaa wuxuu ahaa ninkii yiri anigu waa la socdayo ninkan dad badan baa soo booqday oo hebel baanu doonaynaa marka waxaa la yidhi ninkan ha la baaro. ninkii igu yaab badnaabo xagee laysku soo booqdaa meesha albaabka marka laga soo galaba dadka xawilaad baa ka dhacda, toos baa loo xawilaa, gaari xawilaa la saaraa, meel baa la geeyaa. waaye intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabadgelyo iyo nabadiina iyo nooli kulanteed warsaniyo wersa.